Asalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa saddex waxyaabood oo haddii aad samayso ama aad ku camal fasho bulshada dhexdeeda aad sharaf iyo qiimo weyn ku dhex yeelanayso. Inteena muuqaalka bilaabin, fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh, calaamadda gambalaalkana furo, lana wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanid. Qodobka ugu horeeyo, Alla ka cabsi. Alla ka cabsi iyo inaad wax walba u samayso Alle dartii adigoo asaga ku raali gelinayo. Haddii aad cibaadada oo ugu horeyso salaada aad u gudato sidii lagugu waajib yeelay, kana fogaato wixii laga xaaraamtinimeeyay, siduu rasuulkeena inoo sheegayba waxa ku jeclaanayo Alle. Wuxuuna malaa'igtiisa ku wargelinayaa inuu asaga ku jeclaaday ayagana ku jeclaadaan. Haddii samada laga jeclaado, waxa uu soo degayaa jaceylkaas dhanka dhulka. waxaana ku jeclaanayo dhammaan bulshada aad ku dhex nooshahay. Qodobka labaad, samir iyo dulqaad. Bulshada aad ku dhex nooshahay waa ibni aadan. Dhankaaga ayuu gaf ka imaan karaa ama dhanka kale. Haw mar walba qof u dulqaata dhibaatooyinka kasoo wajahaya bulshada uu ku dhex nool yahay. Alla wuxuu macood yahay dadka samraa. Qodobka saddexaad, iska ilaali baryada. Haddii baryadaada ama codsigaada uu ku bato bulshada aad ku dhex nooshahay, waxaa dhimanaya sharafta iyo qiimaha aad ku dhex leedahay. Middaa lidkeeda Alle wuxuu kugu jeclaanayaa baryadiisa waxna aad weydiisanayso. Haw adiga mid ka caawiya bulshada waxna u qabto. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh, calaamadda gambalaalkana furo, lana wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanid.